madaxweyne imaaraadkood xiriir la leedahay ayaa Ethiopia gadaal ka riixaysa muxuu isaga in tiriya mataqaanaa marka muxuu isaga in tiriya kiiskan ama faylka loo geeyay Abiy Ahmed Djibouti la keenay Djibouti raxsan joogay war aniga runtii la igu nicin war aniga runtii la igu nicin madaxweynuhu sababtu imaaraadka isaga in tiriyo la xiriirayeen Sacuudiga ma taqaanaan faylkan loo geeyay Abiy Ahmed Djibouti laga keenay Djibouti حسن شيخ باجوي بهاش هو إمارة مك ومضى لو بينجوري مك إلا ولا كشف ما يسمع أنت لا كشفين أو كشف كو إمام ومضى بينو شيء مدحوينه هو مصر الحرير والله بالله طلع بين شيء وحد داوتان تلفزيون خرج مدحوينه الصومالي وحول الحرير الدولة قطر مدحوينه الصومالي وحول الحرير هذا الله كوين مايو دولة مصر والحرير ولا ريالو أنا قبل ذيك القرآن anigu waxaan ahay wali wixii xogo hoosan gudbiya siyaasadaha hoosan wax badan baan ka ogahay haddaynan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud fari ku gudnay wasiirka arrimaha dibadda ayay magacaabi lahayd markuu dhaco ficilka maalintuu baarlamaanka hortaagnaa saacadii ka horreeyay oo ay golaha wasiiradu ay hadlayeen waxaa loo baahnaa wasiirka arrimaha dibadda in lagu dhawaaqo hadday fari ku gudnay war aniga runtii lagu nacay وزير كلمة جودها جبت إلا قلنا واقعية وزير كلمة جبت إلا قلنا واقعي وحال يردل كان دفاعينا وزير كي يا نهضية على بركة محبع تلك واي تلك حكو قراب تكرسي أنا أقول جهان حسن شيخ محمود على بل على نقول لي من وزير كلمة جبت أقوم درسنا ومرح على بل على غران ولايه مركب فيري مركب سردون كانورا ومحصلات سوق بكاره مري محصلات جد كسو استاغي محصلات بصو راعي انت سكليو اود كرو مانتو كو غادا مرح مركب محرمنا حرير كان ارمها دبدنا نصا وجلسنا محرمنا سردون كانوا نسلا وجلسين ايتوبيا واسك قبرنا صومالي محمدي انت هدي داونيسي انت داود دونتو خلو شيغيا ايتوبيا wax sugan bay haysataa war wallahi inaysan Ethiopia saxiixa musabbixi kaliya haysan maxaan ku iri hadday Ethiopia rabto saxiix maamul goboleed hadday Ethiopia rabto mar hore ay haysan lahayd laakiin wax sugan ay haysataa wax sugan oo ilaahay u ogyahay waxaad ka garan kartaa ficilka kuwa hogaamiya Soomaaliya haddaysan wax sugan haysan madaxweynaha dhaqaaqaysa arkay xidhay haddaysan wax sugan haysan de wallahi inaysan muuse kaliya saxiix haysan ilaahay baa ugu wallahi way fahamsayeen adduunka ma ka shaqeynayo saxiixa muuse bixi way ogyihiin laakiin waxay haystaan qof muuse bixi ka sareeya hadduunan Xasan Sheekh ka harin Ismaaciil Cumar Geele haddaanan Soomaaliya loo yaabin falanqeeyo siyaasadeed oo dambe halka lama soo fariisato intuu Xasan Sheekh Ismaaciil Cumar Geele daba taagaya Soomaaliya waa loo yaabaya qolkan asaagish baxarkan asaga horsad u ahaa isaga Djibouti ugu yeeray maanta xaaladan ku sugannahayna Xasan Sheekh Maxamuud qofka qoorta ku galiya Ismaaciil Cumar Geele waa maxaad salahay Soomaaliya laba maalmood la sheegaya maalinta saddexaadna waa laga gudbaya ma Ethiopia oo badeena intaas oo mitir laga siiyay miya laba maalmood la sheegay meel ku qorta intuu Xasan Sheekh daba taagay Ismaaciil Cumar Geele Soomaaliya way ka shalay doontaa inta sirdoonkan uma hasalaad yahay iyo kuwa ka khibrad hooseeya ka aqoon hooseeya Soomaaliya waa laga shalay doonaa haddii xiriirkeena arrimaha dibadda cali balcad yahay Soomaaliya wallahi waa laga shalaynaya Soomaaliya dib baad ka shalay doontaa kuwa ugu aqoonta liita kuwa ugu hooseeya kuwa ugu iimaanka daran ayaa maanta dalkii hogaaminaya adigu badaa ka maqan Soomaaliya ciidan ku dilay ciidan dadna waaba kugu baashaaraya madaxweynihii dalka Masar uu telefoon u diray على كل حال نكي مصبيحي أها وحو كدقي جيجيجا وعلى الله شعب الجيجيجي إلى دقيقة سيسان سلام كرامه يشرف يولاني معي ولوغا هي مامور كاسي توبي وغوصتك هذا وانا مامور لغا مامور أديس أبابا لكن ولي دادك الجيجيجا كل دقن ضمير تودوي نوشح وضعي مصبيحي أها شعب كي جيجيجا وجيجا وحو كلا كل وحالا إصلاحا سيدي جيبوتي سيدا أنا راهي إثيوبيا
Etoobiyaanku ay ugu soo cararayeen bay reer jigjiga ugu soo carari doonaan waxaa la waayey qof shacaba oo reer jigjiga ah oo muuse bixi soo dhaweeya sharaf baad leeyahay karaama iyo cizo waana dad nool baa tihiin maantana muuse meeluu sharaf ka leeyahay ma jiro inaad sidaa ula dhaqantaanna aad baan u soo dhaweynaya waxaa kuu soo haray damaca maanta Etoobiya ay qorsheynayso horena waan uga hadlay waana kugu celinayaa Etoobiya isbuucyada fooda lagu soo haya oo ay kow ka tahay maalinta Isniinta waxay dhihi doontaa Soomaaliya iyo Somaliland waa laba wadan oo kala madax bannaan Somalilandna waan aqoonsanay aqoonsigaasi muxuu yahay ba'na maaha ta'na maaha wax ka jira haba yaraatee maaha Etoobiyana aqoonsatana Somaliland aqoonsi ku heli mayso aqoonsiga Somaliland Muqdisho yaalla runtan idin sheegay Ingiriis hadduu maanta aqoonsado Maraykan hadduu aqoonsado hadday midowga Yurub oo dhan ay aqoonsadaan aqoonsiga sharciga saxda ah ee qaramada midoobay ay ku hortagi karto waa aqoonsiga magaalada Muqdisho dowladda federaalka deyn karta haysan karta hadalkaas waa hadal xaqiiqo ah oo meel yaalla waxba yaaran waqtiga la isaga lumin Etoobiya iyo wixii la mida Etoobiya waxay samayn doontaa waxaan aqoonsaday Somaliland ka warrab maalintay sidaa tiraahdo ilaa iyo maanta safiirku waa joogi doonaa Muqdisho safiirku waa loo joogi doonaa haddii ay sidan tiraadaysan oranna wallahi wax isbedelo dowladdu samayn doonto ma jirto waxaan lagu madadaalinayaa madaxweynihii Masar oo la xiriiray waxaan lagu madadaalinayaa madaxweynihii Masar oo telefoon kula hadlay waxaan lagu madadaalinayaa waxaasoo idin marka fahma warka inta badan nuxurkiisa muhiim inaad fahantaan adiga idaawanaya isweydiin muuse intuunan Abiy Ahmed la kulmin iyuu la kulmay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh weliba waxay ku kulmeen qol albaabadu ay u xiran yihiin wada hadal iyo heshiis baynu galnay warbaahinta loo sheegay heshiiskaasi iyo wada hadalkaasna baarlamaanka federaalka Soomaaliya lama geeyo ma ii diidi kartaa haddaan ku dhaho faylka Abiy Ahmed loo geeyey waa faylkii Djibouti laga keenay hadduusan ahayn maxaa baarlamaanka loo horgeyn waayey maxaa loo shaacin waayey maxaa loo kala saari waayo oo loo dhihi waayey war waxaynu ku heshiinay annaga iyo kooxda Muuse Biixi sidan iyo sidan iyo sidan ayay ahayd kuma aysan jirin in la dhiibo dekada Soomaaliya xana lagu sheeg waayey lama sheegin Soomaaliya alloona marka tibir balafaa ku jirta dadkan waxay isku qarinayaan wax kala ma aha waa hal ujeedadaasna farbaa ku godan maxay dhihi jireen farmaajo afar dekadood dhiibay maanta maxaa la marayaa baddiyaan gadanay allow ceebta asto ceebtan magac xumadan waxay u soo hoyatay hoggaanka dalka ninka maamulaya sumcad darradana isagaa keenay wallaahi inuusan xasan sheekh nadiifka ahayn oo ilaahay uu ogyahay hadduu xasan nadiifka ahaan lahaa wasiirka arrimaha dibadda uu magacaabi lahaa tilaab cadna waa uu qaadi lahaa yaanan ummadda been loogu sheekaynin runtana ogaada maalmaha nagu soo aadan isbeddel aad arki doontaan weliba saacadaha nagu soo aadan weliba 24 saac ay soo socda hadalka aan maanta ku hadlayana 24 saac ay soo socda arki doontaan sida ay dowladdeenu u jilicsan tahay Soomaaliya iyo Etoobiya maanta waxa lagu tartamayo waa awood diblomaasi ee dowladeed waay weli xabadii lama gaarin annaga hoggaankeenu inuu jilicsan yahay 24 saac ay soo socda arki doontaan meel ku sii qorta wixii soo kordhan insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda waxaan guliyo gobonimo u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Xasan Sheekh hadduu daacad yahay wuxuu yiri golaha wakiilada macnaha golaha waxaan la kulmayaa maamul goboleedyada dalka wuxuu yiri waxaan ka reebayaa maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Qaatumo waxaan arrimaha badda kala hadlayaa madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Hirshabelle madaxweynaha Galmudug سعيد دنينا مايا ما كان هذا يصير مايا اوكي عبد القادر فرنيه مايا صوت ما تقعنا مدحوينه ولنا عيب كي هرتيو قبا نينك aan rabnay inuu Ethiopia naga celiyo nacayb oo hartiyo qabaaba ninna hartiga nacab oo daaroodka degan Puntland iyo Qaatumo aan arki karin shirka golaha wada tashiga qaranka waay been idin sheegi maayo shirki golaha wada tashiga qaranka habeen hore la qabtay waxa loo diiday zoomka inuu yimaado Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdi Qaadir Firdiye goormaan marka cadow iska celinayna noocaas ayaan nahay noocaas ayaan nahay meeshaasaan marayna
waxaan rabaa marka ummaddeeda sharafta leh si aad runta u ogaataan maskaxdeena dib u raaca wasiir arrimo dibadeed malihin sideen Ethiopia ula dagaalayna cidda diidan wasiirka arrimaha dibadda in la magacaabo daacad ma ka tahay inuu maanta la dagaalamo daacad ma ka tahay jawaabtu waa maya 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 barnaamijkan markaad youtube-ka ka daawan doontaan insha allah dhabarkayga dambe ayaan soo dhigi doonaa hadda waa live facebook aan live ka ahay dhabarkayga dambe waxaan soo dhigi doonaa warqado oo cali balcad qoray oo la leeyahay safaaradaha waxaa laga mamnuucayaa qof kasta oo ku famil ah abshir huruse wasiirkii hore arrimaha dibadda oo harti ah oo majeerteena nin kasta oo ku famila oo loo magacaabay safiir ama bunsul ama shaqaale safaaradeed waxaa lagu bedelayaa qof hawiya oo hiraabo ilaahay uu ogyahay annaga marka dagaalkaasaan ku jirnaaye dagaal badeed horta diyaar ma u nahay ilaahay ku dhaashay annaga waxaan ku dagaalamaynaa daaro nacayb harti nacayb ayna dowladdu ku jirtaa goormaan Ethiopia iska celinaynaa goormaan ka hortegaynaa Ethiopiyada nagu soo socota warqadaha dhabarkayga dambe idinka tusi doona hadda waa live barnaamijku waa live markuu youtube-ka ka baxayo dhabarka dambe warqadaha soo dhigaya warqadaha aan dhabarka dambe soo dhigi doono ayaad indhihiina ku arkaysaa ninka maanta wasiirka arrimaha dibadda diidan ee ogolayn oo kule nin daarooda imaanaya intaan ka dhigaysanaya halay sugo ninkaasaan raba in Ethiopia maanta uu meel laga saaro meeshaasay arrin maraysaa saraakiil ka tirsan ciidamada Ethiopia waxay gaareen Hargeysa galinkii dambe ee galabtana saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada Ethiopia iyo khubaro ku takhasusay arrimaha ciidanka badda galabta waxay gaareen magaalada Hargeysa haddaba la idmo maalmaha ugu soo aadan 3 cisho ilaa 4 maalmood ay soo socota waxaa tagi doona maraakiibtii Ethiopia ay ugu talagashay inay baddeena Soomaaliya kula wareegto